akhyaarta nagu xiran channelka waxaan idin leenahay soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba fadlan ha ilaabin subscribe like and comment maanta waxaan ku hadli doonaa sheeko ku saabsan laba nin waxay ku noolaayeen labada nin magaalo waana ay ka duwarsan jireen waxay soo fadhiisan jireen wada ay mari jirtay xaas uu qabay boqorkii magaalada marka ay boqoradu agtooda marayso ayaa labada nin midkood waxa uu dhihi jiray ilaahay boqorada fadligeeda wax nagu sii isla markaasna ninka kale wuxuu dhihi jiray ilaahay fadligaaga wax nagu sii boqoradu waxay maqli jirtay hadalkooda subaxii dambe boqoradii waxay bilowday in ay nimankii wax ku sadaqadaysato midkii dhihi jiray ilaahay fadligaaga wax nagu sii waxay siisay 2 dirham halka midkii dhihi jiray fadliga boqorada isagana waxay siin jirtay digaaga shiilan waxay sidaas ahaataba subaxii tobnaad ayaa boqoradii meeshii soo martay waxayna aragtay in uu meesha joogo kaliya ninkii dhihi jiray ilaahay fadliga boqorada wax nagu sii waxay weydiisay adiga soo lacag filan ma helin meesha maxaa ku dhigay markaas ayuu ku jawaabay sideen lacag ku helaa aniga digaaga shiilan uun baad isiin jirtay aniguna waxaan digaagadaas ka sii iibsan jiray ninka saaxiibkay ah oo aan uga bedelan jiray 2 dirham ee aad isaga siin jirtay boqoradu ayadoo yaabtay ay ku tiri waar digaagada shiilan subax walba waxaan ku soo dhaxgelin jiray 1 dirham fadligayga ayaad wax ku su'aalad waadna ku weysay saaxiibkaana fadliga rabbi ayuu wax ku weydiistay wuxuuna noqday taajir لأن ninkaas wuxuu isku helay 1 dirham 1 dirham iyo digaagada shiilan halkaaduu qaatay 2 dirham waxaana loo baahay marka inaan ilaahay wax ku weydiisano fadligiisa ilaahay fadligaaga wax nagu sii taas ba inoo wanaagsan mar walba asxaabtaada aad baa u mahadsantiin fadlan subscribe share and like mar labaad